بسم الله الرحمن الرحيم. عشركان wuxuu ku saabsan yahay functions of the people, shaqooyinka uu wiilku ama people-ku qabto. af Soomaaliyan people-ku waxaa lagu dhahaa wiilka. ugu horeyn waxaa rabaa inaan idin sheego people-ku ma ahan saan cashiradii hore idinku soo sheegay dhisna. marka shaqada aan ka hadlaynaa ma aha wax uu people-ku qabanayo, maadaama people-ku uu whole ama god keliya uu yahay. laakiin waxa qabanaya waa iriska ku wareegsan, maadaama muruqyada sameeya people-ka marna balaarintiisa marna aruurintiisa inuu aruursamo keena ay ku yaalaan iriska. marka bismillaahi rahmaani rahiim aan bilaawno. marka shaqada ugu horeyso oo uu qabto wiilku waxa waaye wiilku wuxuu ilaaliyaa cadadka ama tirada ilays ee galaya isha gudaheeda, isagoo marna balaaranaya marna aruursamaya. cadadka ilays ee la rabo isha gudaheeda inay gasho ayaa waxaa mar walba ilaaliya oo controla wiilka ama people-ka. waa shaqadiisa ugu horeysa uguna muhiimsan. urursamida ee balaarinta maxaan ka wadaa? tusaale, marka ilays ku yaryahay ama aad soo gasho meel mugdi ah, wiilka ama people-ku wuu balaartaa si uu ugu ogolaado in ilays badan uu isha soo galo. marka uu people-ku marka balaarto ama balaarashada people-ka waxaa loo yaqaanaa mydriasis. people-ka markuu balaarto waxaa loo yaqaanaa mydriasis. sida hadda calaamada idinku tusabo, people-ku waad ujeedaan aad ayuu u balaarayaa oo sidii normal size-ka wuu ka wen yahay. okay, marka uu qofku meel iftiin badan imaado, people-ku wuu aruursamaa oo saad ujeedaan wuu ka yaryahay intii hore. marka uu people-ka aruursamo ama yaraadana waxaa loo yaqaanaa meiosis. functionka labaad ee uu wiilku qabto ama people-ku waxa waaye waxa uu ka hortagaa inuu ilays xad dhaafa soo galo isha gudaheeda. marka qofku uu ilays xad dhaafa meel ay ka jirto imaado kale, si uu u ilaaliyo inaysan waxyeelo gaarin unugyada u qaabilsan aragga sida photoreceptorska. marka walba oo uu ilays xad dhaafa qofku la kulmo, people-ku wuu aruursamaa si uu u ilaaliyo mataqaanaa tirada ilays ee la rabo isha gudaheeda inay gasho, si aysan waxyeelo u gaarin mataqaanaa unugyada u qaabilsan aragtida. wiilku functionka saddexaad wuxuu yareeyaa wax loo yaqaan optical aberration. optical aberrations muxuu yahay? caadiyan normal visionka qofka marka aragtidiisu ay caadi tahay, ilayska soo gala isha waxay isugu imaadaa 1 point. ilayska isha wuxuu isugu imaadaa hal meel oo saad sawirka uga jeedaan waa kaas. marka uu optical aberrations jiro, marka waxaa dhacaysa in ilayskii isha gudihiisa soo galay uu isha gudaheeda ku baaho, taasoo dhalinaysa in qofka aragtidiisu ay noqoto mataqaanaa blurred vision, mid shucaac ah ama tashwiish. marka taasa waxaa loo yaqaanaa optical aberration. people-ka marka mar walba oo uu ilays soo galayo wuu aruursamaa si qofka example marka uu rabo shay dhow inuu si fasiixa u arko, people-ka ama wiilku waa aruursamaa, taasoo keenaysa marka inuu qofka si waadixa u arko shaygii uu rabay mataqaanaa. marka taasaa keenta inuu marka reduction inuu yaraado optical aberrationka keenaysa inuu qofka si nadiif wax u arko. taasoo micnaheeda tahay inuu aruursamayo oo meiosis u suubinayo si uu u control ama u yareeyo optical aberrationka. pointiga ugu dambeeya waa depth of focus. kasoo qaad waxaad rabtaa hadda tusaalahan fiyoreyaasha
fiyooraha ugu horeeya marka aad rabto inaad si fiican u aragto kuwa kale aad rabo laakiin kan aad rabto si fiican inaad u aragto waxaad isticmaalaya depth of focus. Depth of focus waa marka uu qofku diiradda saaro shay si uu shaygaas si nadiif ah ugu arko. marka biibalka asagana waxa uu suubinaa aruursamid sida uu uga qayb qaato depth of focuskaas. intaas waa functionska ugu waaweyn ee uu wiilku qabto waana mahadsantiin.